Kawaran haddii aan kuu sheego inuu jiro nin dilay haween badan kadibna hilibkooda cunay, iyada oo dadka ugu dhawaayna waxba aysan ka ogeyn qisadan argagax leh. Maanta waxay nooga imaanaysaa waddanka Kazakhstan, halkaasi oo ku noolaa Nicolia oo ahaa dilaa arxan daran. Balse inta aanan sheekada gudaha ogalin, saaxiibayaal waxaa idinka codsanayaa in aad janaalka korna ugu qaataan, waayo fiidiyoyada aan soo dhigay way cusub yihiin, sheekooyinkanna weli noocan oo kale amaan laga baranin. Halkaanina waa Somali Reaction Video. Maanta qisaduna waxay ka dhacaysaa Kazakhstan. Maanta waxaan idin geenayaa waddankaasi. Qofka aan ka hadlayo magaciisa waa Nicolia, wuxuuna dhashtay 15 November 1952. wuxuuna ku dhashtay tuulo la yiraahdo Uganagash oo ku taala waddankaasi. tuuladaasi waxay ku taala meel u dhow Almaty xilligii Jamhuuriyadda Sofiyeedka Kazakhstan, taasoo ka mid ahayd 15 jamhuuriyadood ee Midowga Sofiyeed. Kadib burburkii Midowga Sofiyeed 1991, Kazakhstan waxa ay noqotay dal madax bannaan. Nicoliana aabihiis waxaa lagu magacaabaa Kazakh, hooyadiisna waxaa lagu magacaabaa Belarus. wuxuuna ahaa wiilka keliya ee u dhexeeya 3 gabdhood oo walaalo ah. Mid ka mid ah walaashiisa ayaa la waayay maalin qura, waliba si qarsoodi ah, mana jirin cid ogaatay halka ay ku dambeysay. Dhanka kale, noloshiisa caruurnimo wuxuu ku soo koray nolol wanaagsan, mana jirin wax dhibaato ah oo kala kulmay familka, dugsiga iyo heerkiisii waxbarasho. wuxuuna ahaa nin fiican, mana ahayn qof aad u liita. Laakiin dhinaca akhlaaqda, Nicolia wuxuu ahaa arday edeb fiican, asxaabtiisana way jeclaayeen. wuxuuna ka qayb geli jiray howlaha dugsiga, mana ahayn qof go'doonsan sababtoo ah waxbarashadiisa xoogaa way hooseysay. Markii uu dhameeyay fasalkii 9aad, wuxuu ka baxay dugsiga wuxuuna galay iskuul lagu bartay tareenada. Markii uu gaaray 18 sano, sanadkii 1970, wuxuu galay ciidankii Soofiyeed isagoo ka shaqeynayo qaybta difaaca kiimikada. Xilligaasi isaga oo 18 jir ah, wuxuu lahaa xiriiro badan oo galmo ah oo la yeeshay gabdho kala duwan. wuxuuna ahaa nin aad uga firfircoon dhanka dumarka, laakiin wuxuu joojiyey markii uu qaaday cudurka galmada lagu kala qaado. Kadib wuxuu codsaday inuu jaamacad galo, sidoo kale waxbarasho darawalnimo ayuu codsaday, balse codsiyadaas waa laga diiday maadaama uu qabo cudurro aad u halis badan. Markaana wuxuu bilaabay inuu ku wareego gobollo badan oo Midowga Sofiyeed ka tirsanaa, isaga oo shaqooyin kala duwan qabtay. wuxuu soo noqday badmaax, wakiil xamuul iyo darawal. ugu dambeyntii 1977 ayuu ku noqday tuuladii uu ku dhashay Uganagash, halkaasi uu ka noqday dabdamiye. noloshiisu markaas caadi ayay ahayd, shaqo ayuu aadi jiray, shaqadana wuu ka soo laaban jiray. Laakiin dhinaca jacaylka dumarka ma uusan lahayn hal qof uu jeclaa, wuxuuna dumarka la sameyn jiray xiriiro aan rasmi ahayn. muddo yar kadib, wuxuu mar kala qaaday 2 cudur oo galmada lagu kala qaado. taas kadib wuxuu bilaabay inuu yeesho nacayb xooggan oo u qabo dumarka, gaar ahaan kuwa uu arkayay kuwa jirkooda ka ganacsada. wuxuuna maskaxdiisa ka samaystay fikir ah inuu adduunka ka nadiifiyo fisqiga. cilmi baarayaal badan waxay ay rumaysan yihiin in dareenada naceebka ah ay qayb weyn ka qaadatay fikradiisa qalloocan ee rabshadaha watay. Intaas waxaa sii dheer, Nicolia wuxuu qabay dhibaatooyin maskaxeed. mararka qaar wuxuu arki jiray wax aanan jirin, wuxuuna rumaysan jiray inuu adduunka badbaadinayo. halkaasi ayay ka bilaabatay silsiladii dambiyada argagax lahaa. sanadkii 1970 ilaa 1980, Nicolia wuxuu dilay habeen badan. dembigii ugu horeeyay wuxuu galay 6 Janaayo 1972. gabar 17 jir ah oo la oran jiray Natalia ayaa kaligeed ku socotay wadada weyn ee magaalada Uganagash, iyadoo ka soo baxday kaniisad kuna sii jeeday gurigeeda. Nicolia ayaa arkay, wuxuuna ku dhuntay meel mugdi ah ilaa ay ag martay. markaasi ayuu si lama filaan ah uga soo baxay gadaal. uu markaasi qabtay cunaha, gacantiisa kalena wuxuu kala soo baxay mindi uu watay, wuxuuna kaga dhuftay laabta ilaa ay geeriyootay. dhiig baa ka qabtay gabadhii. markaasi ayuuna Nicolia dhiigeedii cabay. Nicolia wuxuu sheegay in markii ugu horeysay oo dhiig cabay oo si qasab ah iskugu qanciyay, muusan aqbalay arrintaas marka hore, balse markii dambe wuu la qabsaday arrinkan, waxayna la noqotay wax caadi ah. kadib markii uu mindida ku dilay gabadhaas maskiinta ah, qoortana uu ka jaray oo dhiiggeedii cabay, wuxuu yidhi, waxaan rabaa meel aan keligay ku ahaado oo aan ku nasto. sidaa darteeda wuxuu u qaatay meel qashin qub ah meydkii. intii uu jiidayay meydka, bas ayaa istaagay waddada weyn. markii uu arkay baskaasi, wuu dhuuntay ilaa uu ka dhaqaaqay. markaasi kadib ayuu sii watay isaga oo meydka sii jiidaya meesha qashin qubka ahayd. meeshaasi cid kale ma joogin, isaga iyo meydka Natalia kaliya mooyaane.
wuxuu la baxay mididiisii laabteeda ayuu kala jeexay, caloosheedina wuu u furay, lugahana wuu ka jaray, qaar ayuu boorsada ku ritay jirkeedii, halka oo gacmaheedina ku aasay isla meeshaasi. Madaxeedii iyo lugaheediina banaanka ayuu uga tegay, wuxuuna guriga u qaatay lugaheeda ama boodadeeda sida u taqaanaan, naasaheeda ama xabadka, qaybta kore ee xabadka, wuxuuna hilibkaasi cunayay muddo hal bil ah. 29 Janaayo 1979 dadka deegaanka ayaa helay haraatiga meydka Natalia. Booliiskii ayaa yimid, waxayna warbixintooda ku sheegeen in gabadhan si arxan darro ah loo jarjaray. Baaritaano ayaa bilowday, laakiin wax raad ah lagama helin dambiilaha. 21 Abriil 1979 Nicolia wuxuu markaasi dilay haweeney 70 jir ah oo la oran jiray Anna Morinova. Markaani xataa meydkeedii lama helin haweeneydani, sababtoo ah wuxuu ku dhammaaday hilibkeeda calooshiisa, waana uu cunay. 21 Juun 1979 Nicolia wuxuu galay guri u dhow Almaty. Gurigaasi waxaa joogay 3 qofood oo kala ahaa Ilana oo ahayd hooyada guriga oo 65 jir ahayd, iyo gabadheedii Alexandra oo markaas 32 jir ahayd, iyo gabadheedii kale oo yar. Markii ay hurdeen ayuu gudaha u galay. Marka hore wuxuu dilay Elena, wuxuuna ku dilay sariirteeda isagoo dheer jeer mindi ku dhuftay. Kadibna wuxuu aaday Alexandra, iyadana oo seexatay, iyadana wuu dilay. Kadib gabadha yar markay qaylada maqashay waxay ku dhuumatay armaajada, waxayna aragtay isagoo hooyadeed dilaya. Kadibna labada meedis ag dhigay oo qayb ka mid ah jirkooda jarjaraya. Booliiska markii dambe gabadha way wareysteen, waxayna sheegtay inay aragtay dambiilaha, laakiin mugdiga dartiisa wejigiisa si fiican maysan u garan karin. Toddobaad gudihiisa 29 Juun 1979 mid ka mid ah saaxiibadiisa ayaa u cabatay haweeney kale oo lagu magacaabi jiray Marina oo ahayd 23 jir. Nicolia ayaa ku yidhi guriga iigu keen. Markii Marina guriga timid oo ay kaligeed noqdeen, Nicolia wuu weeraray, wuuna ceejiyey ilaa ay ka dhimatay. Qoortana wuu ka jaray, dhiiggeedii ayuu cabay, jirkeediina wuu jarjaray. Qayb ka mid ahna fuustooyinka guriga yaalay ayuu ku keediyey, hilibka qaarna wuu qalajiyey. Kadibna markii la baayay gabadhan, Nicolia ayaa la weydiiyey, wuxuuna ku jawaabay, ma aqaano meel ay aaday. Waxaad ogaataa gabadhaasi inay calooshiisa ku maqan tahay. 21 Agoosto 1979 Nicolia wuxuu ka casuumay asxaabtiisa gurigiisa, waxa ay ka sheekaysanayeen ugaarsiga, khamrina way cabayeen. Wuxuuna markaas yidhi, waxaan haystaa qoriga ugaarsiga ku fiican ee aan idin tuso. Qorigii ayuuna ula soo baxay banaanka, isaga oo sarqaansan ayuuna isku dayay inuu shimbiro toogto, balse wuu sheegay. Markii uu qorigii mar labaad rasaas geliyeyna ayuu dheelitirkiisii lumay oo wuu ka dhacay qorigii. Rasaas ayaa si qaldan uga dhacday qorigii, waxayna dishay Alexander. Isla markiina waa la xiray, waxaana lagu eedeeyey dil aan ula kac ahayn iyo haysasho hub sharci darro ah, waxaana lagu xukumay 4 sano iyo bar. Laakiin dhaqan wanaagiisa dartiisa waa la sii daayay. Dhammaadkii 1980 nasiib darro, xabsigu waxba ma aysan ka bedelin. 8 Noofembar 1980 isagoo ka shaqaynaya goob dhismo ah, wuxuu afduubtay haweeney 26 jir ahayd oo la oran jiray Tatina, wuxuuna ku dilay goobtaasi. Kadibna jirkeedii ayuu jarjaray, ayuu guriga geystay. 13 Diseembar 1980 wuxuu galay guri ay ku noolaa gabar 22 jir ah oo la oran jiray Nela, iyada oo sariirteeda ku hurda ayuu 18 jeer mindi ku dhuftay ilaa ay ka dhimatay. Dhiiggeedii ayuu cabay, jirkeedana boorso ayuu ku guray. 18 Diseembar 1980 Nicolia wuxuu ku qabtay gurigiisa xalfad aad u weyn oo ay ka soo qayb galeen asxaabtiisa. Habeenkaasi oo dhan way cabayeen. Subaxii xigtana wuxuu sameeyey wax ka sii argagax badan, wixii oo qol la galay saaxiibtiisii lagu magacaabo Zoya oo ahayd 27 jir ahayd. Markii uu ka soo baxay qolka, dharkiisuna waxay ahaayeen wada dhiig, gacantiisana wuxuu ku watay madaxii gabadha. Markii hore asxaabtiisa waxay u maleynayeen madax caadi ah, laakiin markuu u soo dhawaaday waxay arkeen inuu yahay madax qof bilaadan ah, laakiin madaxaasi waa madaxii Zoya. Dhammaantood guriga waa ay ka carareen, intooda badan cabsi darteeda booliiska maysan u sheegin, balse mid ka mid ah ayaa toos u aaday saldhigga booliiska. Marka uu sheegay wuxuu arkay, isla markiiba waa ay ku qosleen, waxay u maleynayeen nin sarqaansan, laakiin ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay raacaan. Markii ay gaareen guriga Nicolia, albaabka ayaa furnaa, gudaha ayay galeen, cod ayaa ka imaanayay jikada. Markii ay jikada galeenna waxay arkeen Nicolia oo mindi gacanta ku haysta, dhiigna ka buuxa gacmihiisa. Hortiisana waxaa yaalay meydka gabadha.
isaga oo jarjaraya. Markii uu albaabka u jeestay oo arkay booliiska wuu u naxay, isaguna isla markiina wuxuu sameeyey in uu baxsado. Booliiskii ayaa ka daba orday isaga oo ka boodaya daaqada jikada, laakiin ma aysan qabanin. Maalintaas oo dhan way raadinayeen, balse Nicolia wuu dhuntay, wax raad ahna lagama helin. Maadaama wadooyinka caanka ah booliiska meel walba ayay ka baadigoobeen, guryaha asxaabtiisa, qaraabadiisa iyo meel kale oo badan. Ugu dambeyntii maalintii xigtay ayaa la qabtay, waxaana laga helay isagoo ku dhuumanaya god hoose oo ku yaala guriga haweeney waayeel ah oo ay qaraabo ahaayeen. Haweeneydu waxba ma aysan ka ogeen falalka uu soo sameeyey ninkan. Markii saldhigga booliiska la keenana, baaritaanka isla markiiba wuu bilowday. Waxaa la yaabka ahaa inuusan adkaan baaritaanka. Markiiba su'aalaha la bilaabay, wuxuu qirtay in uu gabadhaas isaga dilay, balse wuxuu sheegay inaysan ahayn gabadhii ugu horreysay uu horey u dilay 8 habeen ah. Sidoo kalena booliiska wuxuu siiyey buug xasuus qor ah uu ku diiwaan geliyey sida uu dhibanayaasha u dili jiray iyo sida uu hilibkooda u cuni jiray. Booliiskii aad ayay uga naxeen wixii ay akhriyeen qoraaladiisa. Qayb ka mid ah wuxuu ku sheegay in sababta ugu weyn ee dilalka iyo cunista meydadka ay ahaayeen rabitaan galmo iyo soo jiidasho xooggan oo u qabay jirka habeenka. Wuxuu aaminsanaa in haddii uu cuno meydadka habeenka uu si buuxda u fahmi karo dumarka. Baaritaanka dhexdiisii wuxa uu kaloo sheegay in haddii uu dilo habeenka oo uu dhiigooda cabo, uu awoodi doono inuu arko mustaqbalka. Waxa uu sheegay in arrintan uu ka aqriyo buug weyn oo si weyn u saameeyay. Dhanka kale, wuxuu si cad u sheegay in uu neceb yahay habeenka, isla markaana uu arko inay ka hooseeyaan ragga. Wuxuu kaloo sheegay in dilalkiisu ay ahaayeen argoosi. Dhakhaatiirta cilmi nafsiga qaarkood waxay rumaysnaayeen inuu naceebka u qabo habeenka oo ka dhashay cuduradii iyo galmada ahaa oo ka qaaday, iyo dhaawac shucuureed oo ka yimid jacayl uu ku hingoobay xir hole. Markii la weydiiyey dhibanihii ugu dambeeyey ee ahayd Sawyer iyo sababta uu madaxeeda u soo bandhigay asxaabtiisa, wuxuu sheegay inuu doonayay inuu keliya arko argagaxa wejigooda. Waxaa la yaabka ahaa inta uu baaritaanka socday inuu iska qoslayay, walibana si dabiici ah u dhaqmayay. Wuxuu booliiska tusayay meelaha uu ku aasay ama uu ku tuuray qaybaha meydadka, xitaa isaga oo dib u matalaya dembiyadiisa. Wuxuu sheegay inuu kaligiis cuni jiray hilibka dadka, saaxiibadiisna uusan weligiis siinin. Si kastaba, sheekooyin badan ayaa sheegaya inuu toddobaad kasto saaxiibadiisa guriga ku casuumi jiray oo uu siin jiray cunto hilib leh, iyagoo aan ogeyn in hilibkani yahay hilib xoolaad ama qof bilaadan ah. Markii ay ammaanaan cuntadiisana, isagoo dhoola cadeynayo ayuu weydiin jiray ma jeclaateen cuntada macaan. Dabadeedna si qarsoodi ah ayuu sirtiisa uga hayn jiray. Markii dambe ayaa banaanka u soo baxday, saaxiibadiisna waxay fahmeen hilibka ay cunayeen noociisa. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu isku arkay in adduunka uu ka nadiifinayo xumaanta, isagoo rumaysan in awood qarsoon hawshan ay la bado. Mid ka mid ah hadalladiisa ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa in uu doonayay inuu u hiiliyo xayawaanka, isagoo ku doodayay in haddii ay dadku cunaan xoolaha, isagana uu cuni karo dadka cuni karo. 3 Diseembar 1998, Nicolia waxaa maxkamad lagu soo taagay dambiyadii uu galay oo ka mid ahaa dilkii haweenka iyo cunista hilibkooda. Maadaama ay dhakhaatiirtu ogaadeen, maxkamaddu waxay amartay in lagu xareeyo isbitaal dhimirka ah oo ku yaala Uzbekistan. 8 sano kadib, xaaladdiisa aad ayay u soo hagaagtay. Sidaa darteed, waxaa loo wareejiyey isbitaal kale oo dhimir ah oo ammaankiisa adkeen. 29 Agoosto 1989, Nicolia uu ka baxsaday 2 sano oo baxsad ahaa. Waxaa la sheegay inuu muddadaas galay 1 ama 2 dil oo kale. Markii dambe, mas'uuliyiintu waxay gargaar ka codsadeen Moscow. 1991 mar kale ayaa la qabtay, waxaana dib loogu celiyey xaruntii caafimaadka ee dhimirka. Sanadkii 2014, waxaa lagu eedeeyey eedamo kale oo dilal ah, taas oo tirada guud ka dhigaysa in uu dilay ugu yaraan 10 qof. Dabadeed, sanadkii 2016, waxaa faafay warar sheegaya inuu baxsaday mar kale, balse wararkaasi been ayay noqdeen. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen in uu weli ku jiro isbitaal dhimir ah oo ku yaala gobolkaasi ilaa 2025, isagoo isku dayay in la sii daayo. Dhakhaatiirta qaarkoodna waxay sheegeen in uu degan yahay oo xaaladdiisa soo hagaagtay, balse maxkamaddu walow ay diiday inay sii dayso. Mararka qaar wuxuu codsaday in la dilo ama la sii daayo, balse codsigiisa lama aqbalin. Dhakhaatiirta ayaana sheegtay in isbitaalka marka uu joogo qof caadi u degan, waliba ka qayb qaata nadaafadda isbitaalka.
mararka qaarna ka caawiya dayactirka qalabka. Qisadani waxay ka mid tahay qisooyinka ugu yaabka badan ee aan soo tabiyo.